taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Odway Yusuf Raage oo hubkii ugu badnaa markani la soo galay magaalada Muqdisho. Haddaba maxay tahay sababta ugu weyn ee markani taliyihii hore uu hubkani ula soo galayo magaalada Muqdisho? Ciidanka beesha Harti Abgaal oo markani iyaguna ka soo hayaamaya gobolka Shabeellada Dhexe waa degmooyinka Warshiq iyo sidoo kale Cadale iyagoo markani ku soo wajahan gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Senator Muuse Suudi Yalaxow oo markani ka baxay garabkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markani si toos ah ugu biiray garabka mucaaradka iyadoo markani mar kale laga filan karo magaalada Muqdisho inuu ka qarxo dagaal culus oo markaasi u dhaxeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kalena qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya markani dawladda federaalka Soomaaliya oo markaasi hogaaminayo madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo markani duulaan military ku qaadi doonto maamulka Puntland oo uu hogaaminayo Saciid Cabdullaahi Deni iyadoo markani dawladdu ay qorshe la yaab leh markaasi oo ay doonayso in Deni ay meesha kaga saarto ay qorsheynayso. saacadihii ugu dambeeyay waxa isu soo tareeyay xog iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan arrinka dawladdu ay ka doonayso maamulkaasi Puntland. qodobada kale waxaa qayb ka noqonaya markani beesha Mursada oo iyaguna markani cudud ciidan ku soo bandhigay degmada Daynile ee gobolka Banaadir iyadoo markani ay soo bandhigeen gaadiid dagaal iyo sidoo kale saanad military. waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ku saabsan arrintan ay soo bandhigeen beesha Mursada oo ka soo jeedo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. qodobadaas iyo sidoo kale qodobada kale ee markaasi nagu soo kordho ayaan idin la wadaagi doonaa saaxiibayaal ee markale soo dhawaada. haddii ay tahay marka kugu horeysa aad soo boqoto fadlan YouTube-keena subscribe saar gambalelka furo muuqaalkana like saar siina share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faallada noogu reeb waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahadsanid daawada aynu ku bilowno. xogo iyo sidoo kale macluumaad saacadihii ugu dambeeyay si soo tarayay taasi oo ku aadan in magaalada Muqdisho ay soo galeen hub iyo sidoo kale saanad military oo markaasi hogaaminayo taliyihii hore ee markaasi ciidanka xoogga dalka General Odway Yusuf Raage. generaalka ayaana lagu soo waramayaa in ciidankii ugu badnaa abid uu markani la soo galayo magaalada Muqdisho iyagoo markaasi ka imaanaya ayaa la leeyahay gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ugu horeeyaan degmooyinka Cadale iyo sidoo kale Warshiq. taliyaha ciidanka markani uu watay ayaa lagu soo waramayaa in ay yihiin ciidamo markaasi macawisley ah oo markaasi ka dagaalami jiray gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo haatan markaasi sababta ugu weyn ee markani taliyaha uu ku soo waramayo in ciidankiisa iyo sidoo kale hubkiisu uu la soo galo magaalada Muqdisho. ciidamadan ayaa iyaguna tiradooda waxa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 500 oo askari iyagoo markaasi wata ayaa la leeyahay gawaariyaal gaaraya ilaa iyo 5 cabdibile iyo sidoo kale qoryaha darandooriga u dhaca noocyadiisa kala duwan. sababta ugu weyn ayaa lagu soo waramayaa in markani General Odway Yusuf Raage uu maalmihii ugu dambeeyay shirar kala duwan oo laha madaxdii hore dalka soo martay kuwaas oo ay qayb ka yihiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo markani isagu ay isku heeb yihiin iyo sidoo kale madaxweynihii sagaalaad ee markaasi Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. General Odway Yusuf Raage sidaad ogtiinba 2 mar ayuu soo noqday in ka badan taliyaha ciidanka xoogga dalka waana markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana haatan xogaha iyo sidoo kale macluumaadka ay ku soo waramayaan in markani taliyaha uu doonayo in markiisa saddexaad markaasi loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka waa haddii uu meesha ka baxo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markani madaxweynaha dood iyo sidoo kale marun xoogan uu ka dhashay. dhinaca kalena haddii aynu eegno Senator Muuse Suudi Yalaxow oo isaguna markani ka baxay garabkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markani isaga iyo sidoo kale beeshiisa Harti Abgaal iyaguna ay ka soo hayaamayaan gobolka Shabeellada Dhexe. dharbaaxa xoogan ayuu markani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala kulmaya markaasi Senator Muuse Suudi Yalaxow oo markani garab iyo gaashaan u noqonaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxdii hore dalka xilal kala duwan ugu soo maqatay. sababta ugu weyn ayaa lagu soo waramayaa in markani Muuse Suudi iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo markani khilaaf xoogan soo kala dhaxgalay Muuse Suudi ayaana markani lagu soo waramayaa in go'aan degdeg ah uu ka qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markani ciidankiisa iyo sidoo kale markaasi hubka kala duwan oo markaasi haysto Muuse Suudi uu markani ku taageerayo siyaasiyiinta mucaaradka oo markaasi ugu horeeyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo haatan lagu soo waramayo in isaga iyo sidoo kale beeshiisa markaasi Harti Abgaal ayaguna markaasi ka soo hayaamayaan gobolka Shabeellada Dhexe isagoo markani hubkiisa isaguna kala soo baxay gobolka Shabeellada Dhexe. hubkanna markaasi waxa uu isugu keenay
xaafadda uu markaasi magaalada muqdisho uu ka degan yahay ee madiina. Senatarka haddii uu hubkiisa magaalada muqdisho la soo galo isagoo markaasi garab iyo gaashaan u noqonaya markaasi siyaasiyiinta mucaaradka madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaasi waxa uu la kulmaya ayaa la leeyahay markaasi culeyskii uu weynaa abid uu markaasi kala kulmayo siyaasiyiinta mucaaradka oo markaani garab ka helaya markaasi senatarka ayaa lagu soo waramaya. Sidoo kalena waxa qayb ka noqonaya markaan haddii aynu eegno maxaa ka socda degmada Daynile sidoo kalena degmada Daynile waxa lagu soo waramaya in ay haatan ka socoto abaabulkii ugu horeeyay oo markaasi ay sameynayaan ninka lagu magacaabo Galyac iyo sidoo kale beeshiisa iyagoo markaani sheegay in ay markaasi ay ka hortagi doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale waxa uu doonayaba. beeshan sidaad ogtiinba waxa ka soo jeedo markaasi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre isagoo markaani dawladdu dagaal kula galay degmada Holwadaag gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Bermudo halkaasi oo markaasi dagaal qaatay ilaa iyo 20 saacadood ay halkaasi ku dagaalamayeen walow markii dambaba dagaalkaasi la soo afjaray kaasi oo u dhaxeeyay markaasi ciidanka markaasi dawladda iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre. intaasi kadib Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu hooy uu ka degay degmada Daynile ee gobolka Banaadir halkaasi oo markaasi uu ku aruursay isaguna ciidamo markaasi ka soo jeeda beeshiisa waxaana haatan lagu soo maraya in Galyac iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo markaasi ka tirsan ciidanka xoogga dalka kana soo jeedo beeshaasi ay halkaasi iyaguna ku soo bandhigayaan markaasi gaadiid dagaal iyo sidoo kale saanad military. qodobka ugu dambeeyana haddii aynu eegno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa haatan bilaabay duulaan kanka ah Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale maamulka Puntland isagoo markaani dawladda federaalka Soomaaliya markaasi uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuudna ay ku dhawaaqday in markaani ciidan horle ay geedonto magaalada Garowe. maxay tahay sababta markaasi Garowe loogu dejinayo ciidamadani? dawladda ayaana haatan lagu soo waramaya in wada hadal markaasi ay in badan la yeelatay Saciid Cabdullaahi Dani wada hadalkaasna uu ku soo dhamaaday fashil iyo sidoo kale falxumo. sababta ugu weyn ayaa haatan lagu soo waramaya in markaani dawladdu ay markaasi awood ciidan ay ku maqoonayso markaasi Puntland isagoo markaasi ay doonayso inay halkaasi ka saarto madaxweynaha markaasi maamulkaasi Puntland markaasi Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaasi xalay kulmo kala duwan kula yeeshay filla Soomaaliya saraakiil markaasi ka soo jeedo maamulkaasi Puntland iyo sidoo kale markaasi kuwa kale oo markaasi xilal hore uu soo qabtay maamulkaasi Puntland. haddaba maxay kula tahay in xasan sheekh maxamuud oo markaani duulaan qaawin ku qaado maamulkaasi Puntland wixii fikirkaaga ah daawadayaal qaybta hoose ee faalada noogu reebad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena ma haysan daawada.